gabadhan ama inantan calanka Soomaaliya sidata inta calanka sidata soo ma garanaysiin waa inantii baraha bulshada qabsatay waxaan filayaa in la yiraahdo Bilan Maxamed in la yiraahdaan jecelahay waxayna caan ku tahay laba video oo midna ay ku taageerayso Muuse Biixi midna ay kaga soo horjeedo soo la diiday iyo malaa'igtiisu inagu waynu nacnay saar la xisaabtami 20 kun nin buu meel u diru ku yiri orda soo dagaalam xabad kursigu laandheere garxajisi waaye laanqaab reer samatara oo qabalayga xarshineed ka yimi oo jadwaq tuanka u jaro xubnaha ugu muhiimsan xisbiga wadani ayuu ka tirsan yahay Faysal Ali Xuseen muxuu yiri qofka u cud ka tirsan ee aytama ama reer ha caayo ama xisbi ha caaye ee aan af siyaasi ku hadal afkaygu ku hadlay maadaama xisbigay ka tirsan yahay maanta liibaan daba jire waa xubinta sidaan idin sheegay waa xubnaha ugu muhiimsan ee xisbiga wadani ku dhaqaaqo taa beddelkeedana waxa uu taageeray u yahay Farmaajo haddaba reer Soomaaliland oo su'aal weydiiyo ninka taageero u ah Farmaajo ma waxaad leedihiin waxa weey waa reer Soomaaliland oo xisbi mucaarad u iman kara haddaad reer Soomaaliland oo taa aaminsan tihiin waxaan idin leeyahay wadayaan dirantii waayahay anigu uma soo istaagin bartan inaan reer Sheekh Isxaaqa wax ka sheego balse waxa weey in inanta loo caqli celiyo oo runta loo sheega waa wax qurux badan weey maanta inay calankii Soomaaliya ama calanka shayaadiinta inay ku dhex qaadato magaalada Hargeysa ama si qarsoodiyaha ku gasho oo baraha bulshada soo dhigto balse maxay ka dhigantay intay si qarsoodiya calan qaatay intay isu wiisayna sawir iskaga qaado bal weyn dur istaagi doonaa sidoo kalena waxaan dur istaagi doonaa Faysal Ali Waraabe ama Faysal Ali Xuseen oo yiri dadka aniga i taageersan ee beelaha kala caaya ama xisbiyada kale aan xisbiga kama simid ahaanayo sidoo kale waxaan idin tusi doonaa taageerayaal Cabdiraxmaan Ciro taageera oo u ololeeya campaign-ka u gala balse taa beddelkeeda haddana taageera ninkii loo oran jiray Farmaajo labada qodobna bal waynu isbarbar dhigi doonaa waayahay waxaan idin ka codsanayaa haddii aad YouTube channel-kayga daawanaysid inaad YouTube channel-ka subscribe saartiin waa daawatiin subscribe ma saartiin sidoo kale inaad muuqaalkan like saartid waxa weeye muuqaalkana aad sii share garaysid siday ummaddu xaqiiqada u gaadho ay u gaadho haddii aad muwaadin aad ila tahay fikirna sii share garee muuqaalkan sii share garee haddii aad aniga ila fikirtahay haddii aad aniga aanad ila fikirhayna waad mahadsan tahay halkan lagaaga ma baahno aad iyo aad baad mahadsan tahay waayahay inantan horta calanka seeta aniga sida wararku soo gaareen waxa weey labada cisho ugu dambeeyay ama 48 saacadood ugu dambeeyay waxay haysataa baraha bulshada waxa la yiraahdaa sidoo magaceedu ugu soo gaaray Bilan Maxamed waa sidaan u malaynayo aniga magaceega waa la yiraahdaa Leeguuri Bilan Maxamed baa la yiraahdaa dad badan oo reer Soomaaliland ayaa ii soo diray sawirkan waxay ugu yiraahdeen war Cabdixakiinow inantani soo ma aha inantii 17kii Muuse Biixi madaxweynaha qaranka u ololeeynayay ee waliba tiri inantuna waa habar jeclo ee waliba tiri waxa weey madaxweyne Muuse Biixi soo baxo ha guuleysto markuu guuleystana wiil Sacad Muuse aan isku wada waa inantii qadiyada sida u jeclayd ninka Muuse Biixi taageera dawlad qadiyada Soomaaliland jecel waxa weey kolka maxaa ku dhacay calankii maxay u qaatay haddaba gacan shisheeyay nagu dhex jirta mararka aynu leenahay aniga iyo dad kale oo iiga aqoon badan ba Soomaaliland waa ka hadlaan balse dadka qaar baa dhagaha ka fureystay inay dad shisheeye nagu dhex jiraan iminka inantani waxay sidataa waa calankii Soomaaliya calanka Soomaaliya halkeebay ku gashay kula tahay Burcay ku gashay ma Berberay ku gashay ma Hargeysa ku gashay bal midda kale iyadoo reer Soomaaliland oo waliba dadkii lagu sheegi jiray inay tahay darbi isaaq habar jeclo maxaa u geenay inanta inay maanta calankii shayaadiinta qaadato waxa weeyaan waxaan jecelahay inanta ilaa wix dalkeena waa ka mamnuuc calanka buluuga in la qabto oo la xiro xilmaad calankan gashay sawirkan goormaad gashay ku gashay goorm in lagu dhaahdo muhiim weey calankii Soomaaliya ayay xiran tahay waana qalataas waxa weey qodobka isaga halkaas aan kaga tagaya bar waxaad in yar ileegtiin inantan oo leh eekada inantan oo leh waxa nin odayoon maalin dhawid muuqaal ka duubay ayaa yiri war siyaasiyiin
waxaa soo baxa carmala ama hinaasaa soo baxa bal inantan waxaad leegtiin iyada oo leh waxa weeye xaafadda jigjeer xaafad kamida waxa weeye waxaaba iska haysata oromo ama meel kale horta jigjeer baad moodaa inay degan yihiin dadka jigjeer xitaa waa hurda sakad waxa degan baa oromo waayahay taa haddaan ka imaado bal waxaad mar kale leegtiin markii ay muuse biixi u ololeynaysay ay magaranaysaayay maryaha tuuratay ee ay lahayd muuse biixi baan taageersanahay madaxweynaha qaranku ha soo baxo mujaahidku hana hogaamiyo siyaasadiisaanu u baahannahay iyadoo intaana leh balinyarile waayahay kilibkaan ood ila aragtay ma jecelahay bal markii dambe oo ay leedahay muuse biixi waxa weeye dadkaygu waa iibsaday maxay buu sameeyey wuu burburiyey waa intan laga dhaadhiciyey fikirkan Soomaali weyn ama calankan inay qaato intaan bay muuse biixina mucaaradadii inay mucaarido bilowday bal hadda waxaad leegtiin iyadoo muuse biixi mucaaridad adag kula jirta oo u hanjabasa muuse waa la diiday ilaahay malaa'igtiisu inaguba waynu nacnay saa la xisaabtami 20 kun nin buu meel u diru ku yiri orda soo dagaalam xabadna lagama hayo orda askar Faysal Cabdi bilan maxamed waxaanu leenahay in adeer bilanay waxa weeye horta waad qaldantay madaxweynahana waad dhaliili kartaa dadkuna waxa ay ku leeyihiin say aniga hablo badan oo qoraal ii soo qorayay baan arkay dadkuna waxa ay ku leeyihiin bilan maxamed ma wiilkii Sacad Muuse ayaa kaga baxay ma wiilkii ayaa gabadh kale guursaday wiilkii ay orolii hore sheegaysay ayaa gabadh kale guursaday waarinanta Sacad Muuse maxaad u xumayseen waxaan leeyahay wiilkii ay heshiiska la gashay waxa weeye bi waayay Sacad Muuse inantaa doona oo geel iyo lo iyo waxaad ka bixin jirteen iyo magaranaysa dahaba iyo diinaarba ka bixiya qodobka iyada halkaas ay kaga tagaya bilan waxaan leeyahay in adeeriyana calankaad maanta garab ka saaratay yaana maalin daba lagu arkay muuqaalka sawirka shalay baa la soo diray waxa lagu yiri warintaas waa inantii baraha bulshada ka hadlasay ee aftahanada ahayd balse waxa weeye calankaan ku aragnay maxay ahayd anu muuse biixi dhaliil kuma lihi waad dhaliili kartaa waxaad doontaan oran kartaa waxaan cayhayn ku dhaliil balse waxa weeye inagada maxay dhahdaa inagada bahalka calanka xun kii shayaadiinta inaga ilaali qodobka isaga halkaas aan kaga tagaya waxa jiray heshiiska ay madaxweyne muuse biixi iyo abi ra'iisul wasaaraha Itoobiya ay isku afkarteen waxa ka horeeyay heshiis ka horeeyay oo Somaliland aad looga hadalhayay ayaa jiray waa heshiiskii DP oo lagu dhisay ama dekada Berbera waxa weeye waxaan tusi doonaa nin lagu magacaabo liibaan cadaal ay yiraahdaan laakiin anigu liibaan daba jilic baan u aqaana waa mid hadal jilicsan oo nacasa waxa weeye wuxuu taageero u yahay farmaajo hadda ilaa iyo 17kiina waxa uu taageero u ahaa maxamed cabdilaahi ciro musharaxa xisbiga wadani ayuu ilaa hadda ayuu taageero u yahay isagoo maxay dhahday ku mudaharaadaya isagoo London jooga heshiiskii lagu dhisayay dekada Berbera isagoo ku mudaharaadaya oo le waxa weeye yaan la soo degin military space yaa laga siintaa isagoo haya bal waa kana yareeyaga ونحن ضد أي عدوان دولة عربية. واي كليبيدا waan idin soo gaagaabinay inaan waqtigeedii ka cuno marrabo sidoo kale waxaan idin tusayaa Cabdiraxmaan Ciro oo sidaas la mid ah isaguna u diidanaa heshiiska lagu dhisayay dekada Berbera bal hadda eeg fikri baa la isku yahay Cabdiraxmaan Ciro waa taageere farmaajo liibaan daba jiricna waa taageere farmaajo weey ma labadan nin ayuu maanta dal u dhibanaa ilaahay baa idinku dhaariyay bal Cabdiraxmaan Ciro oo isna ka soo horjeeda in la dhiso dekada Berbera waa waqtigii siiraayay bal hadda in yar leeg heshiisyada dekada iyo saldhigga Berbera oo dawladda federaalku saxeexday ayuu uga dhigay in xukuumadda Soomaaliland la gashay bal hadaba alla idinku dhaariyay reer Somaliland waxa weeye maninka Cabdiraxmaan Ciro ee taageerayaashiisu ay farmaajo taageeraan ayay muxuu dhibanaa war haddii aynu cid muuse ku bedelano
وأنا فيصل علي حسين دورنا وأنا فيصل علي ورابة دورنا وحوي مركز تيسو قد يدع يسكان كأمضى الصومالي لان أيو يسوق مرول بوتاجيه مرول با يسوق بوتاجيه إن الصومال لان مدودو شعب كيدو ومدوبو سلوا كله دبلان لو وضع طاقة أو لو وضع مقرنسا هرمر لو وضع جارو بس ما أنت ليبان دبتشي مركو كسر جستي اسمه دكدي بربرة أو ما أنت ضلك هالك يقول شرتو أينو نقانو اسمها دكدي بربرة دي بي وول وحوي والكور فرماش تاجر ميون عقوهين وحوي ويا ضرر له أيام ضررتن كويني هوايراتين مجتو بالواحد ليكتين وحو مدحوينها للدلمية عقوبة سنقص عطو فيصل علي حسين أويلي أنا قفك أفكي حسبي كترسن عيتما وحوي أفكي عيتما فيصل علي حسين أفكي سكوها لي نك حسبي كترسن عيتما أما حسبك العاية أما بيرك لو حكى شيء أفكي وكوهلا بريء أنتوا عيتما وريرا عايو سو حسبي كسو جيدا إن هذا طيب أنا كاس أفكي يكون هذا وعيب حسبي أقعد كوهلا واي بل هدنا واحد ليكتين نين كان هراء دي صوت صي يا لقوم مقعود ليبان ضبط شرع ليبان برناقود تضبط ناقود ولا دشيبوي أيا ليدي تضبط ناقود أيولا دشا ما تضبط دمرة سدو وجود حشري أيو هذا الكودي يقاب رقم كودي وفعل كودي بياشي ما أنتنا وسياسي أما محل هاي تاجر وحفر ماتشو تاجر حصاد وأهنا عبد الرحمن عشرو بالواحد ليكتين إسقى أمضي عاية وحاولوا كتير سنة حسبك وضني بكتير سنة وانا وضع الله بينا كرسي قعر رواية نفردين انت نوصع عنا وين والله هنا لا تكون فردين وبالله هنا لا تكون فردين كرسي واي هذا بني كان تصيا حبنها وقوم مهمسن حسبك وضني أيو كتير سنة فيصل علي حسين محولي قفك أعد كتير سنة عيتما أما غيرها عايو أما حسبها عاية أن أف سياسي كهضل أفكي كهضل ما دام حسبي كتير سنة ما أنت اللي بنضرب شرع وحبنت سدان الدين شاقي وحبنها وقوم مهمسن حسبك وضني كل رقاقه تابد الكيدنا waxa uu taageeray uu yahay farmaajo hadaba reer Soomaaliland oo su'aal weydiiyo ninka taageero u ah farmaajo ma waxa leedihiin waxa weey waa reer Soomaaliland oo xisbi mucaarad u iman kara haddaad reer Soomaaliland oo taa aaminsan tihiin waxaan idin leeyahay wadayaan dirantii